beri hore waxaa jiray boqor kaasoo jirabi jiray ama imtixaami jiray dadka tuulada uu boqorka ka yahay ku nool. maalintii dambe ayuu dhagax weyn dhigay laamiga bartamaha magaalada Marta. Wuxuu isku qariyay meel aan ka fogeyn laamiga si uu u ogaado bal cidda ka qaata dhagaxaasi. Dad badan ayaa soo maray, balse waa ay iska dhaafeen oo kama ay qaadin dhagaxii. Ganacsatadii iyo maalqabeennadii magaalada ayaa haddana soo maray, balse way iska garab mareen oo ay dhaafeen iyaga oo aan ka qaadin dhagaxii. dad badan ayaa boqorka ku eedeeyay inuusan jidadka nadiifin oo aanu ilaalin bilicda magaalada, isla markaana ku fashilmay inuu dhagaxa ka qaado. balse kamay hadlin ama tala kama dhiiban sida looga qaadi lahaa dhagaxan weyn laamiga. maalintii dambe waxaa soo maray nin reer miyi ah oo khudrad sita. markuu arkay dhagaxa weyn ee laamiga yaalla, inta uu khudradiisii dhulka dhigtay ayaa uu isku dayay inuu ka qaado waddada. cabaar kadib wuxuu ku guulaystay inuu ka qaado dhagaxii laamiga. markii uu damcay inuu khudradiisii qaato ayaa uu arkay boorso taalla halkii uu dhagaxa ka qaaday. waa uu furay, mise waxaa ku jirta lacag iyo dahab fara badan iyo weliba warqad. warqadda waxaa ku qornaa: waad ku mahadsan tahay wadaninimada aad muujisay, sidaa awgeed waxaad abaalmarin u heshay lacagta iyo dahabkaa si loo helo dad qalbi wanaagsan oo badan sidaada oo kale. xigmadda sheekadan ku jirtaa waa inaad mar walba caawinta bulshadaada ku dadaasho, taasoo aad aakhire iyo adduunba ku faa'iidi doontid. sheekada labaad, waxaa jiray wiil cadho badnaa isla markaana dabeecad qallafsanaa. markii noloshii ku adkaatay ee dagaal, ciil iyo murugo u dhammaatay, ayaa maalintii dambe aabbihii oo xaaladiisa dusha kala socday u yeedhay. markii uu yimid, wuxuu u dhiibay kiish masaabiira, waxaanu ku yidhi: mar kastoo aad xanaaqdo ama cadhooto, xabad musbaara ku garaac gidaarka dayrkeenna. maalintii u horraysay wuxuu ku garaacay 37 musbaar gidaarkii. wiilku wuxuu si tartiib u bilaabay inuu xakameeyo cadhadiisa toddobaadyo kadib. tirada masaabiirta ee uu ku garaacayay gidaarka ayaa si tartiib hoos ugu dhacay. wuxuu ogaaday inay ka fududahay xakamaynta xanaaqiisu intii uu ku dhajin lahaa gidaarka masaabiirta. ugu dambayntiina waxaa la gaadhay maalin uu gebi ahaanba xanaaqiisa xakamayn karo. kadib warkii farxadda lahaa ayuu aabbihii u sheegay, waxaanu u raaciyey in masaabiirtii oo dhani dhammaadeen. waxa uu odaygii faray wiilkiisii inuu haddaba mar kastoo uu xakameeyo cadhadiisa uu ka soo saaro xabad musbaara gidaarkii uu markii hore ku dhajiyey masaabiirta. sidii baan u yeelay ilaa uu masaabiirtii gidaarkii ka nadiifiyey oo ka soo wada saaray. si wanaagsan baad yeeshay, laakiin fiiri godadka gidaarka ku hadhay. gidaarku weligii sidiisii ahaan maayo. markaad qof ku dhahda erayo adigoo xanaaqsan, waxay reebayaan nabar sida kuwan gidaarka oo kale. micno ma laha inta jeer aad dhahdo waan ka xumahay, iga raalli noqo, balse nabarku weligii waa uu jirayaa, ayaa uu aabbihii u waaniyey wiilkiisii yaraa. xigmadda sheekadanna ku jirtaa waxa weeye in qofku xakameeyo cadhadiisa oo uu qalbigiisa saafi ka dhigo, taasoo uu ku helayo dembi dhaaf iyo caafimaadba. sheekada saddexaad, waxaa jiray nin xikmad badnaa isla markaana bulshaawi ahaa oo tuulada uu ku nool yahay caan ka ahaa. waxaanu dadka tuulada kala talin jiray mashaakilaadka soo food saara. maalin walba waxa uu iman jiray dad fara badan oo haddana isla hal dhibaato ka cabanaya, taasoo si xun u saamaysay noloshooda. cishadii dambe ayuu bilaabay inuu u sheekeeyo, weliba sheeko maad ah oo aad u qosol badan. dadkii oo dhani waa qosleen. haddana isla sheekadii ayuu ku celiyey. cabaar kadib, qayb dadkii ka mida ayaa qosashay. haddana mar saddexaad ayaa uu ku celiyey isla sheekadii. markan cidna ma qoslin, dadka oo dhani waa ay aamuseen. ninkii inta uu dhoola caddeeyey ayaa uu ku yidhi dadkii: kaama qoslin karta sheeko fiicani dhowr jeer, balse siday hal dhibaato kaaga ohin kartaa dhowr jeer. dadkii inta ay xikmaddii fahmeen ayay si dhib yar u xalliyeen dhibaatadii. xikmadda sheekadan ku jirtaa waa in qofku ka dagaalamo inaanay hadimooyinka adduunyadu noloshiisa saamayn, oo uu noqdo qof adag oo dhiiranaan iyo karti la yimaada, isla markaana aan u liicin isbeddelka waayaha.